بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka koobaad aad iyo aad halkan uga mahadnaqaynaa haddii aan nahay wafdigii ku maqnaa hawsha dhammaan shacbiga Somaliland dibadda gudameedu joogaba gobolada oo dhan qaybaha mujtamaca oo dhan axsaabta mucaaradka oo siyaasadda wadaagno golayaasha dadweynaha kala nooca badan ee aqoon-yahan leh ee dhalinyaro leh ee haween leh ee reer miyi leh ee reer magaalo leh ee beeraley leh taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arrintaa uga socdeen uga dagaalgaleen aad baan ugu mahadnaqay. mahadnaqaaka wafdiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dherigsan yahay oo social media aad loogala socday idaacadaha. waxaana ugu muhiimsan waa shirkii ugu horeeyay marka laga reebo kii London 2012 oo dowladda badan isugu yimaadeen London oo ahaa kii u horeeyay inaga iyo Soomaaliya lagu wada hadashiyo oo uu ka soo baxay go'aanadeenu daba soconay ee dhaxgalka ahaa oo ugu horeeyo in bariga dhawaad kontumeeyo dowladda halka yimid laga soo saaray inay Soomaaliya iyo Somaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo si wada hadlaya. hase yeeshee 2012 laga bilaabo ilaa maanta 2008 sanadood wada hadaladii halkaa iyo niyadamaantii ay ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo. wada hadaladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwa aan horan loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihi dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku marmarsadaan aynu ku wareegaysano wixii maxay ahayd kalsoonisiyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaaday la dhanaa caalamka inoo ogaa lama helin fagaara laga wada hadlo. shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dawladii ugu xoog weynaa shiray iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dawladda Mareykanka ugu horeyso oo ay ka soo qayb galiyeen Yurub EU oo dhan dawladaha Yurub xafiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dawlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii loona xil saaray dawladda Djibouti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaaliya dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murmo doodu waxay tahay halka la iska diiday garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrinta dhexdhexaad ka noqdo hogaamiyada maadaama ay horan tahay. waxaan inshallah inuu mahadnaqo dhammaan haddii Soomaaliland nahay anoo dalka Soomaaliya dhulka hadaya cidii shirka soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrinta 12 London laga bilaabay intii dambe sacsanay in laga wada hadlo iyo dawladda Djibouti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaanaa taariikhda. shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celimay saddexdii cisho oo dambeeyay baan ka hadlay. shirka markii la dooday cudurada dowladda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dawladaha oo ka Mareykanka ugu xoog roora waxa loo go'aamiyay la yiraahdo arrinta waa culusta markii horreysay in la garabsado arrinta waa culusta hadday culus tahayna oo dad camadsa u kala sareeyaan baa loo guraa. waxaan u diiday xageenu ka bilowna waxaan ku niriday waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyay horta la fulin ee markaas la bilaabi doonaa haddaan tii hore la fulin haba yaraatay haba weynaatay haddaan ku hore la fulinay maxaa tuduma laga bilaabo
sidii baa lagu guddoonsaday waxaa loo saaray guddi wasiirka waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso oon idiin sheego guddidaa wasiirada ah iyo adna oo wasiirka roona ah iyo maxamed biixi oo wixii uu aqoon iyo awood hayay maanta shirkaa kaga qayb galay oo isla la socday oo telefoonka lagula socday iyo wasiirada shanta halkan fadhiya maxamed biixi baa shirkaa ku jiray oo isagu Nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aad iyo aad u adag waxaa hubaala shanta halkaa fadhiya afartaa wasiiriyada saddexdii cisho dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horeeyaan tobankay soo baxaya saacadda qadada mooyinta kale kursi baa lagu fadhiyey inta badan iyadoo la cadaysay dhiigi karayaa bannaanka iyo gudaha loo soo baxayey waayo dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasiib-darradu waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka ay xumaddu maraysa iyo waxa jira nasiib wanaag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba aniyo saleebaan waxaan odayaal noqono war balukaadiya degdeg mayne innaga haddaan lahay balukaadiyaha soo boodin inaan ku celino halkaa ay ka soo boodeenba nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo gunaaday annagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumosa laakiin dowladda Jabuuti baa guntiga isha iska dhigtay madaxweynada oo isa soo taago in ma waa la kala gar qaadanaya waa inaan soo saara communication waxa la wehelinayay dowladaha shirka waday oo qolada Mareykanka ugu weyntahay oo yiri ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garnayay waa loo kala gar qaadanaya wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqtiyada la soo qabtay markii hore ee arrintan la weydiiyay waxaan ku galnay ma doonayno shir inta la sii yimaado la salaamo walaal kala tagay haddii hawsha loo galayo si dhab ah oo mudaysan oo mid waqtigeeda la qabanayo oo ama lagu heshiiyo ama la isku diiday si dhab loo wada hadlayo diyaar baan laakiin uma baahnin tufooda ugu galaya iyo tu cid sawir lagu tusaayo iyo tu abanta maxay ahayd mudaharaah iyo midna ma rabo horta shirka nuxurkiisu waa ka waanu soconayaa marka saddexda qodob ugu muhiimsan yihiin tii dhaqaalaha oo ka dharagsantiin oo soo taageen inama meesh joogo wardi anaga dawladda dhaxaw anaga caalamka la midna idin kala ma ictiraafsana oo kulli cidii ku dooratay iyo cid aad u taliso oo ula tag anaga wadina ma wayne anaga isoo madax banaan caalamka soo joogsan taas oo ay si dhab ah ugu yiraahdo qorada wax bixisa Mareykanka ugu wareeya annagu Soomaaliya oo dhan baan wax siinayna haddii deyn laga saamaxana Soomaaliya oo dhan Soomaaliyadii hore oo dhan isku soo waxsin haddii idaan heshiis ku ahayn socon mayso sida u qaybsanaysa isoo looysan deegaanka saakin marka waa la iskala soo gudbay ana doortay ictiraafaha inaga soo ictiraafsan dawladda waxaan kolka aad iyo aad u mahadnaqayaa wasiirada sawirka ay qabteen iyo dhibtay ku dhacday oo imikana aanu baahnayn in halka fadhiyaan hor sayar seexdaan ilaa saacadaha hore maanta soo jeedinaya halkaa markaa ka gudbo dadka hawshan qaban qaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabnaa Somaliland mid baa laga rabaa qoladaynu saayna waxba kama rabno xamar ma wada hadlayno waynu isaynaa waynu iskhilaafsanahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeenu u sheegaynaa halkaynu kala taaganahay oo qadiyadaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamku dadkiis qabto uu kala saaraa ama wada hadal baa uu kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan uga sheegaya idinkaa Soomaaliya heshiiye ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo Mareykanka ugu tuwaya waxaan u sheegaynaa laba dawladood istogay baan hore ikhtiyaaraya dawladdu waxa laga dudko 19 laba dawladood baan kala dhisay laba system baan kala qaaday waxaad ictiraafteen oo ictiraafkii naga dhaxeeyay siiseen oo dhaqaale naga dhaxeeyay siiseen oo barsoolkii naga dhaxeeyay siiseen qolada Soomaaliya ee marka annaga cidaan naga tagin annaguna yeeri mayno qola adintaa wada siiseen inaanu la hadalno ama u baryatayno ilaa wixii naga dhaxeeyay dhex noqoto oo ku horena taasaan u haddana taasaan u taagan waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala gar qaato marka adiga waxa kugu xiran
adduunka caalamku bixinaya aanu odhanayna ka mas-uula intaa muqdisho xukumo hadduu xukumoba ayay bay ka mas-uul yihiin laakiin somaliland caalamku ka sugaysaa waxay ka mudan tahay somaliland mid baan leeyahay qaran baynu nahay 30 sano ayaynu somaliland qarannimada dhisay inaynu dowladda dhisano 30 sano ka horreeyana dagaal baynu ku jiray habad leh oo dumis leh oo dhibaato leh oo af leh oo xadhig leh oo muran leh ilaa maalintii la isku daray habeenkii la isku daray ee aadan cadda la daariyey inagoo niyadsan oo aynu nidhi biqe wax walba wada qaato walaalnimada iyo shantii Soomaaliyeed doona waxa yaab lahayd markuu aadan cadda habeenkii khudbadii akhriyay mudaharaadkii ka dhacay ee iyaga gudahooda ka taagnaa oo 13 ku dhaawacmeen 3 ku dhimatay 300 loo xidhay oo dadkii martida u yimid 400 wafti ahaa ay ka yaabeen dabkaynu maalintii galnaa ilaa maanta aan taagana marka waxa la rabaa halkaynu kaga bixinahay Soomaaliland waxa laga rabaa si aynu u gaadhno guusha oo nimanka inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay 60kii ahayd ee aynu wada lahayn ee aynu wada dhisanay ee aynu maantana wada leenahay ee wixii dhexdeena aynu ka saxayno waxaynu u baahannahay dhowr qodob baa laga rabaa ka hore waa nabadgelyo walaalayaal caalamka qancin kari mayno oo ka socon mayno haddaynu maalin walba barkad iyo ijaar isku layno oo maalin walba gurmad reeraad ku jiro dowladna ma doonayno taa waa inaynu bedelnaa 1980 ingiriisku wuxuu yiri haddaad nabadaysaan dagaalada culayska xoolaha reeraha joojisaan gobonimadu waa siinaya tiibana la furi maantana waxaad moodaa in qori la cararaya iyo wax yaro bilaa micno ah maalin walba miidiyaha laga sii deynaya dadka u dhimanaya yaa dad suqunaya wax siinaya dad xabad soo sayay la hadlay taa waxaanu leenahay haddaanu ceelyo tagano adduunkii la soo hadalnay walaalayaal horta naabad aynu ku wada noolaa xalkeena caqli aan ku deeyno oo hal la daayo qabaa'il hebla ay tiraysa qabaa'il hebla ciidan soo urursatay wax ka weyn baynu doonaynaa dhibaataynu ka baxaynu doonaynaa biyo ina heshaan baa doonaysa iskuul ina heshaan baa doonaysa caafimaad ina heshaan baa doonaysa inagu wax ma hayno ku helimayna inuu isriino qori maalmo meel isku leeyna walaalayaal runta markaynu sheegno Soomaaliland nabad baa laga rabaa bariya galbeed walaal waxa laga rabaa Soomaaliland gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo dariska iyo qof walba nabad ku shaqeysata oo aad dad vision leh aragti dheer leh ubadkooda dawladba u dhisaya dadka wanaag kula macaamilaya la maal gashan karo loo iman karo wax lagu aamini karo oo lagu shaqeysan karo socon mayso qofka yimaada dalkan muxuu doonayaa waxay wadaan mashruuc hebel baa la hadlo xaafadeeni baa la geenaya aqal hebel bilaadisa caalamku saa kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa dad kala dambeeya oo is aaminsan oo waxay doonayaan caalamka meel u mara meel looga soo hoyda waxay caalamka dhex marana la kala saari karo oo ay ku aamini karaan waxooda markaas lagu maal gelinaya oo cid walba ku imanaysa oo kala soconaysa saddex waxa laga rabaa inay Soomaaliland dhabar adayga u soo muujiyeen iyo dhibaatada u soo muujiyeen iyo baabiya u soo mareen ay ka muuqatay inay fishan ay meel ku socdaan oo iyagu wax qabsanayaan oo iyagu u dagaalamayaan qadiyadooda ku socon mayso inankii hela bahalka yara telefoonka intuu meel istaagay yiraahdo waa kan iyo kii kale iyo aan wax ogahay inankan waanay inoo dhageysan waxa la soo maray waxaan ugu sheegnaa ku dhicin booshii anagu aanu soo maray tii aabaha ay adeerka ku dhicin ku baabada ku dhicin ka tasho waxa doonaysa laakiin caadifada telefoon ma qaadanaya oo waxa doonaya warde adduunka loo hortay kala baan mas'uuliyadda kulba cid baa siyaasadda hogaamisa ee imka siyaasadda haya ee golayaal leh ee xisbiya leh waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas'uuliyad oo nin kale waxaan ahay golaha ama xisbi baa ama siyaasi baa markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas'uula oo ka fikiraya Soomaaliland dadka xagadaysa la dhageysan maayo xisbiga anagu reehbel la dhageysan maayo gudoomiye xaafadda ku wareegaysanaya meel ina gaarsiin maysa taas inaynu si caalami oo fikrado u baahan oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna galin aanu ka naxin waxba heli maysido
meesha wasiirku malihi waxba heli maysadoo baarlamaanka cid kuma lihi waxba heli maysidoo xisbigaasi waa reeheba dee walaalayaal haddii dadka hogaaminaya dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhiirado ku dabagalo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaad ah dee waar dadkeena dalka hogaamiya cidina ma qali mayso inaguna dadka meel geeymayo ma aha aan midiya qalan aan waxna qalan midiyahan aan qarsano aynu midowno dalkaan dhisno habeenkiina in la kala foqfoqo ama ninka xafiiska marka loo tagayana qolo la isugu socdo ma soconayso meel ku gaarmayno caalam baynu u tagaynaa af Soomaaliya baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaanu leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsanahay gob baanu nahdo saanaanaho waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo kayay ka wariba saayeela dee walaal haddii kale waa jugjuway waxaad geyso falka dambe ayaa ku jira ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa nimanka u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan walaalkii ka dhaxlaa meelkiisa ixtiraamkaas dhaqankeena loo yidhi waa mas'uul aan laga dhacay oo waliba lagu karaameeyo caaqilka odayga suldaanka balka warka suldaan waliba hadduu codad qaato anagu reebar wallahi bilaa tarcib birtiin la yaab dee war suldaan saamahay dhaqan waanu ixtiraamayna annagoo siyaasiyiin waa ka dambayna koofiyadii baa noo sidaa sidii aabayaashiin ahaan jireen dee ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlay oo wuxuu doono sameeyaa dee suldaan markaa ma tigi waad ka baxday xayndaabki waxaan kusoo gabagabeynaya culimadu haynoo ducayso culimadu iyagaa dee inoo haya kitaabkii ilaahay iyo midkii waxaanu ka doonaa culimada inay ducada iyo dikriga ilaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuniyaan iyaguna aanay firqa noo yeelan markaynu intaa isu geynaaba waxaynu doonan helena dadkuna naa garowsanaya ninka Soomaaliya nu hadlaya nin noqonaya wax toosa ku hadli karaya qodobka waxaan dhaafayaa waxaan jira nin muwaadina oo reer Soomaaliland oo 7 sano joogid ku xidhnaa oo arrimaha faralka xisaab xidhnaa oo tirsanaya cadaalad darrada xukuumaddiisa helin waan kala hadlay dawladda Djibouti farkiisii dib loo furayaa insha Allah si natiijo soo ku gaaro mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ciddii shirka fagaaraha noo qabatay ciddii warkayga gudbisay ee dawladahooda u gudbisay ee warkanaga qaaday iyo hadalkeeni jaanis u horeeyay mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dawladdiina martigelisay Djibouti iyo shacbiga dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaar ah ugu ducaynayaa labada xisbiya mucaaradka oo intii ay tagaynay shir walba tagaba iyagu xagga dambe lagu tajiid ka ahayd maanta inay labadaba hambaliyo iyo codba ku taageereen xisbiyada iyo guddiyaasha ma maamulayaan oo waa midaysan qadiyadda waxay kama roorayno taladana way noo taallaa sidaasaynu ku haynaa markaana qorsataanna dhegtana soo qabto waa idinku war fadhinaa waa isku qancinayna dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duulduulka hadalooda xune aynu iska waan inagu aanu ku noqono oday Saleebaan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhowr isdeed soo jeeday oo intaa dhigtay oo daaraynin oo ragay taageer taayirana aad iyo aad maxamudsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantii wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh